Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta oo aan kaga hadli doono qaabka ugu fudud internetka lacag ugu samayn karto. Haddaba intaan guda gelin barnaamijkeena waxaan ka codsanayaa inaad kusoo biiro channelkeena oo subscribe garayso sidoo kalena aad gambaleelka furato si qaybta labaad ee barnaamijkeena kusoo gaarto. Ramadaan Kariim. haddaba intaan guda gelin barnaamijkeena waxaan rabaa inaan idin la wadaago taariikh kooban oo xagga internetka ah. Internetku waxa uu soo bilowday 50 sano ka hor isku day ay samaysay dowladda Mareykanku. waxa uu ka soo bilowday xilli ay kombiyuutaradu qolal dhan buuxin jireen weynaan awgeed. waxa ayna ahaayeen kombiyuutaradu kuwo isku xiran oo haddii mid xumaado kan kalena xumaanayo. 1962 ayaa nin la yiraahdo JCR Licklider soo jeediyay fikrad ah in la sameeyo hab ay kombiyuutaradu iskula xiriiri karaan. 1969 ayaana labadii kombiyuutar ee ugu horreeyay ee fariin lagu kala diro iyagoo isticmaalaya qaabka la yiraahdo ARPANET. waxayna ahaayeen xarumo cilmi baariseed. fariintii ugu horeysana waxay ahayd log in waxaana lagu kala diray labadii xarumood ku kala yaalay Stanford waxaana loo diray USCLA. Stanfordna waxa soo gaaray labadii kelmadood ee ugu horeysay oo ahaa LO. taasna waxay ahayd isku dayga ugu horeeyay ee in laba kombiyuutar wax la isugu diro. sidoo kale dhamaadkii sanadkaas wadamada Britain ayaa iyaguna bilaabay inay systemkan oo kale rakibaan. 1971 ayaa Ray Tomlinson waxa uu ku fikiray qaab ay fariimaha isugu weedaran karaan iyagoo isticmaalaya qaabka loo yaqaano ARPANET-ka loona yaqaano email-ka iyagoo isku gudbinaya calaamadda hashtag-ga si aad hordhac ugu samayso magacaaga. waxaana meesha soo galay Vinton Kerr oo isagu keenay qaab ay kombiyuutaradu isku afgaran karaan iyagoo isticmaalaya TCP ama Internet Protocol waxa loo yaqaano IP address-ka. markii la soo gaaray 90-yadii ayaa waxa uu nin la yiraahdo Tim Berners-Lee oo ahaa programmer keenay systemkan loo yaqaano World Wide Web ee loo soo gaabiyay WW. tanina ma ahayn mid ay culimada kaliya isticmaali karaan balse waxay ahayd mid uu qof kasta xog ka heli karo haddii uu haysto internetka. wixii ka dambeeyay intaas horumar ayuu ku sii socday internetku waxaana la marayaa maanta sanadka 2020 oo jiraan malaayiin dad kor u dhaafay oo internetka si maalinle ah uga shaqaysta. waxaana idinla wadaagi doonaa maanta qaybta koowaad ee qaabka internetka lacag loogu sameeyo. qaabka ugu horeysa ee qofku uga sameyn karo internetka lacag waa qoridda maqaalo isaga uu ku sameynaya website-ka si ay dadku uga faa'iideystaan. waxaana sameyn kartaa website oo dadku soo booqanayaan si maalinle ah. waxaad kaga hadli kartaa waxbarashada, cunto karinta, waxyaabo fara badan. waxaad sameyn kartaa website warar ah oo dadku soo booqanayaan si ay warar u helaan. waxaana lagu xisaabinayaa inta qof soo booqda. Google-ka ayaana barnaamijkan fududeeyay. qaabkan waxa uu u baahan yahay samir fara badan iyo inaad u dulqaadato maadaama ay u baahan tahay waqti fara badan. qaabka labaad ee lacag uga sameyn kartid internetka waa inaad xirfadaada sida mashaariicda waaweyn uga faa'iideysato oo ay ka mid yihiin programminta iyo program samaynta. lacagta lagu siinayana waxay ku xiran tahay hadba sida uu mashruucu yahay, ma mashruuc yarba mise waa mid weyn. waxa kala jirta qaab kale oo aad u caansan oo ah suuqeynta badeecadaha qaab online ah. waxaad samayn kartaa suuqeyn toos ah adigoo la xiriiraya macaamiisha si ay badeecad kaaga iibsadaan kabacdina aad faa'iido uga samayso. waxaana arrintan sahlay inta badan internetka. waxa kale oo jira qaab online-ka aad casharo uga samayn kartid sida tutorial arday aad wax ka baraysid. tusaale ahaan waxaa jira nin isaga oo gurigiisa jooga waxa uu siiyaa casharo ardayda isku diyaarinaya inay galaan jaamacadaha. waxaanu u xisaabiyaa halkii saac $10,000. waa fikrad simbal ah gurigiisana kama tago. waxa uu fududeeyay waa internetka. waxa kale oo noqon karta la taliya xagga internetka ah arrimaha ganacsiga, caafimaadka. muhiimaddu waa inaad aqoontaada iyo awooddaada isla fahanto. waxa kale oo jira qaab ood lacag uga samayn karto internetka ama online-ka inaad badeecad iibgeyso. waxaana tusaale u soo qaadan karnaa kumanaanka dhalinyarada ah ee leh followerska fiican kuna leh Facebookka iyo Instagramka. waxaad samayn kartaa inaad aado shirkadaha Soomaalida ee deegaankiisa ah kuna tiraahdo waxaan leeyahay kaba soo qaad 20,000 oo followers. sidaas awgeed alaabtan aan ku xayeysiiyo waxaad siinaysaa intaas. adiguna waxaad samaynaysaa dadka ayaad si toos ah ula xiriiraysaa si ay badeecadaas u gataan ama waxaan ku xayeysiinayaa moolkayga ama shirkadaada si dadku u yimaadaan. ma tahay qof leh mawhibad sida sawirka oo kale waxaad samayn kartaa inaad sawirkaaga iibgeysid adigoo qof kula xisaabtamaya sawirkaas ayaan ku sameeyay kadibna waxaad isiisaa qiimo heblaayo. waxaad kale oo samayn kartaa haddii aad leedahay xirfad waxay rabto ahaatee aad ku soo bandhigto internetka gaar ahaan baraha bulshada. waxaa jira dad ogol kuna qancaya xirfadaada kana iibsanaya. haddii aad idmo waxaan la wadaagi doonaa website-yo iyo qaabab kale oo lacag u samayn karto internetka. fadlan ha ilmaamin inaad subscribe tiraahdo channelkeena.